Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan daawadayaasheena soo dhowaada. Waxaan ka bilaabaynaa oo aan ka sii wadaynaa cashirkeennii. Waxaan hore u soo sheegnay qaabka loo xisaabiyo electronada dhaqaaqooda ayaan hore u soo sheegnay. Main shell-ka ayaana aan u sheegnay. qaacidada 2n square ayaan ku sheegnay. qaacidada 2n square-ka waxaa ku shaqeeya main shell-iska. Subshell iyo main shell electronka dhaqaaqiisa waxaa loo kala qaadaa laba qaybood oo kala ah main shell iyo subshell. Main shell-ka marka waa midaan oo ah marka horta hal mar aan idin qoro farqi u dhaxay main shell iyo subshell. ardaygu isweydiin karaa what is difference between waa maxay farqi u dhaxeeya. Marka electron shells-ka waxaa loo kala qaadaa dhaqdhaqaaqa electronada ay sameynayaan waxaa loo kala qaadaa electron shells ayaa waxaa loo kala qaadaa laba qaybood. labada loo kala qaado waxaa waaye main shell iyo subshell. labada loo kala qaado waxay kala yihiin main shell iyo subshell. ereyga main shell marka maxaa waaye macnaheedu main shell waxaa waaye is the writing of electron configuration as number. main shell waxaa waaye in la qoro waaye is the writing of electron configuration. waa in la qoro electronada hagaajintooda. ereyga configuration waa hagaajin. waa in la qoro electronada hagaajintooda. electron configuration is the writing of electron configuration as number in loo qoro. ayaa waxaa loo yaqaanaa main shell. subshell waxaa loo yaqaanaa is the writing of electron configuration is the writing waa in la qoro of electron configuration hagaajinta electronada ayaa la qorayaa. is the writing of electron configuration is the writing of electron configuration as number. is the writing of electron configuration as letter as letter. number ma ahaya. is the writing of electron configuration as letter ahaan in loo qoro ayaa waxaa loo yaqaanaa iyadana markaas ayaa waxaan leenahay subshell maxaa marka electron shells meeqa loo kala qaado dhaqaaq electronka laba qaybood maxay kala yihiin main shell iyo subshell. main shell waxaa waaye is the writing of electron configuration waa in la qoro hagaajinta electronada maxaa loo qoraya as number ahaana loo qoraa 28 tanna maxaa waaye waa is the writing of electron configuration as letter sida xaraf in loo qoro s b d f in lagu muujiyo. waa kana warkaas ayaa marka halkaa sii wadayna buugga qaabkaas mu kala qaadaay. marka waa kana shelliska arfada grouped waa la kooxeeyaa into subshells subshellskiisa ayaa loo kooxay meeqa loo qaybiyaa into 4 different types. 4 nooca loo qaybiyo oo kala ah s b d f. s maxay u taagan tahay marka fast shell ay u taagan tahay. shellka koowaad ay u taagan tahay oo ah k. f-taas marka waxay u taagan tahay maxaa laga soo gaabiyey wax laga soo gaabo muhiim waa inaad barato iyaga xataa qaabka f-ta waxaa laga soo gaabiyey inaad horta ila fahamta basic waa very important. haddii kale weliga way kuga adkaa doontaa. f-ta waxaa laga soo gaabiyey spherical electron capacity-ga electronka ay qaadan karto waxaa waaye highest electron ay qaadan karto gadaalaan ka sheegi doonaa. bida waxaa laga soo gaabi principal. bida waxaa laga soo gaabi principal. dhida waxaa laga soo gaabi diffuse. f-tan waxaa laga soo gaabi fundamental. saas horta igula fahan intaan waa ila fahanta soomaa. spherical wareeg electronada ay sameynayso ayaa wareeg noqonaya. principal xeer ereyga bida waxaa laga soo gaabi principal oo xeer ah. dhiidan maxaa waa diffuse electronadeeda way dhexdusayaan oo maxay dhexdusi karaan kuwa energy yar ay dhexdusayaan. f-tan fundamental waa aasaasi oo waxay aasaas u tahay lanthanide iyo actinide series. labada macnaha jiif oo ugu dambayso labada kale ee ugu dambaysa periodic table-ka ayaa waxay u tahay basic oo fundamental u tahay. bidan waa principal maxaa waaye waxaa ku dhaqan galay sharcigu ugu horeeyay Handislow ayaa markii ugu horeysay ku dhaqan galay
oo Henry's law muxuu tilmaami doonaa oo arki doonaa haddii ay yimaadaan haddii yimaadaan more orbitals badan hadday yimaadaan hal meel isla ah hal shayna uu wato hal sublevelna uu wato ama hal subshell uu wato siday u kala horeeya un kala gelgeli qaabkaas almuhim waa bara doonaa laakiin faham waxaas laga soo gaabi esta spherical b the principal d the diffuse waxay ku samaysaa esta goormay ku samaysaa waxay ku samaysaa marka ay tahay half filled electronadeedu marka ay yihiin half filled markay u dhowiin 4 markay tusaale d-da 4 electron ay haysato esta ugu dhaweey waxay ka soo qaadataa electron half filled ay ka dhigataa markay 9 electron haysatana hal electron esta ugu dhaweey ka soo qaadanaysaa waxay ka dhigataa electronadeedu 10 ay gaarsiisataa oo way dhaxdartaartaaho way ka gudubtaa diffuse ay ku samaysaa esta eftan waa fundamental waa inaa qaabkaas ugula fahantaa horta kuwaas highest capacity esta ay qaadan karta electronada ugu badan mar walba s ay qaadan karto waa 2 b-na electronada ugu badan ay qaadan karto waa 6 f-na electron d-na horta aan dhaha d-na electronada ugu badan ay qaadan karto waxa weeyaan waa 10 f-na electronada ugu badan ay qaadan karto waxa weeyaan waa 14 intaas waa isla fahanay Soomaa waxaa kaloo su'aal ardayda isweydiin karaan sidee ku imaadeen kuwan waa su'aal kaloo muhiim su'aashaas real markaan ka hadlo anigu waan baari buwaagtan Soomaaliga waan ka baari wax hal buug oo Soomaali oo qoray waan ka waayay muddo badan aan baaray inta maadadan chemistry-ga aan diraasada ku waday xaqiiqadii markii daba waan helay buwaag dabaan ka helay ma sha Allah markaan firino midaan qaabka looga shaqeynaa markaan firino waa sidaan siday ku imaatay waxaa jir wax loo yaqaano quantum mechanics maxaa waa tirada charge wata quantum mechanics waxa waaye waxaa loo yaqaana is the beginning waa in laga bilaabo tiradii is the beginning waa in laga bilaabo maxaa laga bilaabayaa from positive charge from the numberka markaas waxaa laga bilaabayaa from the numberka markaas wata from positive from the number positive numberka positivekiisa laga bilaabaa tirada positiveka laga bilaabaa tun waxaan la geynayaa to it is negativekiisana markaasi la geynayaa to it is negative maxaa waaye negative-keeda ayaana markaasi la geynayaa marka waxaan leenahay waa is the beginning waa in laga bilaabo from the number positive numberka marka tiradaasi waxaa laga bilaabayaa numberka positive-keeda laga bilaabaa inteen la geynayaa to it is negative waa qaabkee iga warsug anaa kuu sheegi doono s b d f esta waxaan u qaadanaynaa 0 b-dana 1 tanna 2 tanna 3 waa 0 aan ugu bilaabayo waxaan rabaa charge inaan sameeyo charge maadaama aan rabo inaan sameeyo sidaa darteeda waxaan u qaadanayaa 0 waa in la helaa maadaama aan sameynayo waa in la helaa tiro ka madax bannaan charge yaa charge qaadan karin marka 0 maadaama 0 charge aysan qaadan karin oo ay tahay tiro ka madax bannaan sababtaasan 0 u qaad maxaa u qaadatay 0 maxaa lagu bilaabo diluu dhaha waa in la helaa maadaama charge la sameynayo waa in la helaa tiro ka madax bannaan charge-gaas yaa marka la qaatay marka sababtaas ayaana 0 loo qaatay 0na ma waa ka madax bannaan yahay charge oo ma qaato negative iyo positive ma qaato midna sidaan ognahay waa isla fahansama intaa waaye esta markaan fiirin waxaa ila ogaataa node waxaa ila ogaataa every number walba waxaa ku jira every number in gudihiisa waxaa ku jira number walba gudihiisa waxaa ku jirta 2 electron 2 electron ayaa ku jirta idan qaacidadaas ila fahan number walba meel yaala waxaa ku dhex jirta 2 electron labadaas electron maxaa dhaqaaqa koowaad electronka ayaa tiro walba meel taala noogu jiri doonto esta markaan soo qaadano esta aan ku hormarno esta markaan soo qaadano waa 0 sama 0da maxaa ma laga sameey karaa marka charge waa maya maadaama laga sameey karin 0 la ku soo celi laakiin 0 waa number waa 0 isku diidanahay sax maxaa ku jiri kartaa number wal marka 2 electron 2dam jibaar maaha
in way ku jirtaa waa marka maadaama laba electron ku jirto marka sababtaas s waxay u qaadatay 2 electron sababtaas s waxay u qaadatay 2 electron marka waxa waaye way ku jirtaa waay laba tiro walba meel taal la 0 waa tiro walba meel taal waxa ku jiri karto electron s tana sababtaas ay laba electron loo siiyay bida hadda ma ku sameey karnaa oo ku sameey karnaa mechanics charge ila mechanics charge waxa waa tirada positive ka in la bilaabo la geeyo negative kaada si looga bilaabo positive ka macaan hadda b maxay inta ku wadataa fiir maxay inta ka bilaabataa 1 tiro charge laga sameey karmata waa laga sameey karaa maxay noqonaysaa marka +1 yaa ka yar -1 yaa ka sii +1 afwan +1 yaa ka yar 0 waa ka sii yar 0 yaa ka sii yar -1 from it is positive to it is negative +1 to it is negative tiro walba +1 marka tiro ma tahay tiro walba meel taal maxaa ku jirto 2 electron 0 tiro ma tahay tiro walba meel taal maxaa ku jirto 2 electron tan tiro ma tahay maxaa ku jirto 2 electron isku soo darsa intooda meeqa marka waa 6 electron waa 6 electron waa hay dhiidan aan fiirin halka idana dhiidan markaan fiirino maxay leedahay idana waxaan ku sameey karnaa charge oo waayo halka maxay noo wadataa 2 ay ku wadataa sama 2daas marka lagu sameey karaa marka 2daas waa lagu sameey karaa from it is positive +2 yaa ka yar +1 yaa ka sii yar 0 yaa ka sii yar -1 -1 yaa ka sii yar -2 0 dadka qaar waxay isleeyihiin macalinka 0 iyo -1 0 iyo -1 markuu dhaam ku saxsan ku saxsana 0 iyo negative tirada negative mar walba 0 uu ku weyn tirada negative koodad saas ogaaw aye tiro walba meel tal maxaa jirto 2 electron 2 electron 2 electron 2 electron 2 electron haye isku soo dars mar guud ahaan marka laba ku dar 4 laba ku dar 6 laba kale ku dar 8 laba kale ku dar meeqa waay 10 sababtaas ay 10 ku qaadatay f-na soo sameeya exercise u qaatidika f exercise u qaata 14 maaho 14 taad exercise u qaada 14 taasay ku maatay adiga oo raacayo exercise u qaada soo sameey comment igu soo qor insha Allah waa inaad fahanteen filaa qaabkaas marka subshells ku imaanayaan waana kana had subshells ku qaybina marka laga hadlaa waa kana wuxuu ku leeyahay waa la qaybiyaa subshells waxa loo qaybiyaa into 4 different types oo ah S iyo B iyo D iyo F as wuxuu uga hadlaa kaliya marka qaabka u kala taageen shelleska waa kana wuxuu ku leeyahay S waxay noqonaysaa marka fast shell u taaganta okay has only one S has only S ayaa u taagan dhaqaaqa koowaad the second shell labaad maanta waxa taagnaan doono oo L waxa u taagnaan doona S e B waxay u taageen oo amaba L taasi dhaqaaq labaad L oo aqaan jirsama L waxa u taagan SEB subshells kaas u taagan third shell ka saddexaad oo M waxa u taagan SEB u taagan subshells kaas u taagan ana soo kale fourth shell ka afraad oo N waxa u taagan SEBEDEF macnaheedu maxaa loo jeedaa meeshaan si jilciyo maxay qaadataa S hadda idin dhahay highest electron dhaqaaqa koowaad oo K waxa u taagan S-na K maxay qaada jirtay marka K waxay qaada jirtay 2 electron S-na maxay qaada jirtay 2 electron fiirisa isku keenays dhaqaaqa labaad oo L dhaqaaqa labaad meesha in la fahmo dhaqaaqa labaad oo L maxaa u taagan oo ku dhahay waxa u dhaqaaqa labaad horta meeqo gaaray dhaqaaqa labaad wuxuu gaaraa 8 dhaqaaqa labaad wuxuu gaaraa 8 soma hay maxaa loo qaadanaa oo ku dhahay marka S iyo labada subshell loo qaadanaa oo S iyo B S meeqa ahayd S waxay ahayd 2 B na meeqa ahayd electronadeedu 6 isku dar meeqa marka 8 waana asaas macnaa u fahamaniin waa sidaas hay KLM dhaqaaq saddexaad M na meeqa gaaray dhaqaaqa 18 meeqa u taagan ku dhahay dhaqaaq saddexaad meeqa subshell u taagan S iyo B iyo D u taagan hay S meeqa waa electronadeedu marka S electronadeedu waxa waaye waa 2 B na waa 6 D na waa 10 isku soo darsamay marka 18 saasay ku maatay hay N idana fiiri yaa u taa meeqay noqonaysa dhaqaaqa 32 hay yaa u taagan ku dhahay S iyo B iyo D iyo F hay
ma noqonayo marka haas tanoo laba ah marka waxay noqonayaan s oo laba ah oo lagu daray s oo laba ah oo lagu daray b oo 6 ah oo lagu daray d oo 10 oo lagu daray 14 inta markii isku soo dadar meeqa marka 6 2 ku dar 8 10 ku dar 18 14 ku dar meeqa marka waa 32 sama 32 waa 18 10 ku dar meeqa la 8 4 ku dar 32 sida marka saas uu jeedo warku ku sarbeeba waxba uusan ku sarbeebin waa qaabkaas waa kana markan ka hadlayn inaad fahanteen hada filaya distribution of subshells in the shell waa kana quantum number waa kana dhaqaaqa koowaad oo k ah waa kana ay u taagan s waa kaas marka s na meeqay la mid tahay waaye 2 electron la mid tahay waa kana marka dhaqaaqa labaad oo l ah s e b u taagan s oo laba iyo kan isku darsamay qaab 18 markii hore waa kana oo inta kugu soo cadeeyay Soomaalihin dhaqaaq labaad maxaa u taagnaa jiri dhaqaaq labaad 8 u taagnaa jiri dhaqaaq koowaad maxaa u taagnaa jiri laba u taagnaa jiri dhaqaaq 18 dhaqaaq afraan 32 dhaqaaq shanaan saas oo ato ku wada Soomaalihin haddana waa qaabkii kaliya s maxaa u taagnaa s oo laba ay b oo 6 isku darso waa 8 bas kan dhaqaaq saddexaad u taagan oo m ah ayaa u taagan s e b d dhaqaaq afraad oo n ayaa u taagan s b d f waa qaabka marka specific subshell is iyada symbolized waa la calaamadeeyaa by writing iyadoo la qorayo the number of shells iyadoo la qoraayo followed the letter xarfahan ayaana kadibna lagu calaamadeeyaa of subshellska for example tusaale 3b oo kale reference waxay u taagan tahay the b subshell b-daas waxay caddaynaysaa inay tahay third shell waa maxay third-ka saddexaad ay u taagan tahay macnaha 3b markaan leenahay tiradaasi ka horeyso 3b-da ah waxay u taagan tahay shellka saddexaad inay sii marayso ay u taagan tahay leeyahay subshell marka tirada saddexaad maxay u taagan tahay horgalaha ah waxay u taagan tahay dhaqaaqa saddexaad inuu sameeyay electronka ay u taagan tahay leeyahay waayahay haye soo kale each subshell markaan leenahay each subshell has definite number wuxuu leeyahay nambaro markaasi cayiman oo leeyahay of orbitals orbitala ah orbitalada in kuwan igan maxaa waa faahfaahin ay rabaan insha Allah muuqaalka xigan ka dhigi doonaa halka inoo joogto each subshell hay inoo joogto each subshell kan faahfaahin badan u baahan yahay marka insha Allah halka inoo joogto ama santiin walaalayaal